socodkeena saddexaad ama istaraatiijigeena saddexaadna waxaa la dhahaa 3 minute fast 3 minute easy. waxaa jirto cilmi baaris ay samaysay hadda ka horna videoan kaga soo hadlay Shinsu University Japan jaamacad ku taalo. waxay rabtay inay ogaato socodkan 3 daqiiqo isbiidka lagu soconayo. isbiid markaan ku leeyahay orod maaha, rucleena maaha, waa socod caadi ah oo socod bobsiis ah. 3 daqiiqa qabsanaysa isbiidaad ku soconaysaa, 3 daqiiqana si caadiyaad u soconaysaa. 3 daqiiqo iyo 3 daqiiqo 30 daqiiqaad gaarsiinaysaa. waxay dhaheen kow fat loss fiican buu sameeyaa oo jirka 15 ilaa 30% faatka wuu ka gubaa. labo insulin sensitivity-gaagana wuxuu noqonaa high. insulin sensitivity muxuu yahay? waa opposite-ka insulin resistance. insulin resistance waa taqaanaan ma ku fogaanayi, waa albaabka laga galo qofka inuu macaan ku dhaco. waa albaabka unugyadaadoo dhan ay insulinka iridaha ka xirtaan, sokortuna ay dhiiga dhex sabayso. laakiin sensitivity-gu waa marxalad uu qofka ku jiro mashiin faatka gubayo uu yahay. waa marxalad caafimaad oo sokortaada levelkeeda uu fiican yahay, jirkaagana shaqada gudihiisa ay wax jaama ka jirin oo si fiican u shaqeynayo. insulin sensitivity kor. labo metabolic signal wuu leeyahay. jirkaaga metabolismkaaga gaar ahaan si nadiif ah yuu baruurta kaaga gubaa.